إلهي هنقدر مركوه ومركا إيقار نقدان ربي قد كبقى سبحانه عز وجل الذين يخشون ربهم إن الذين يخشون ربهم بالغيب اللهم اغفر لنا يا رب العالمين اللهم استر عيوبنا يا رب العالمين اللهم استر عيوبنا يا رب العالمين عيبتين الله استر ولا ليال qofka kalena waxa laga yaabaa markuu albaabada soo xidho oo uu kaligiin noqdo inuu wuxuu rabo sameeyo bal wallahi wuxuu hooyadii aabihii kala baqayay bal wuxuu saaxiibtii kala baqayay inuu ku dhaca laga yaabaa yastakhfuna min annaas wala yastakhfuna min Allah dadkay iska qarinayaan إلهينا إسكما قرينيان يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا قرأ يكوى بريسنا يا وحسن إلهي رالي كأهين إلهينا علم يسوك كوبي ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ملائك كراما كاتبين إلهي كوسو ديري كوارديينيسا كحشون ربك أن كحشون ربكين أن كحشون ملائكتيسا أن كحشون مركان خلواتك كجرنو فسادك يدبك وبهلك ومد يا أخلاق ضدك مسلمين تأكوهايو نشكو إلى الله إلهي بانو شيغانينا والله إلهي بانو شيغانينا إلهي هل لقى بقو قضب كاللباد وأن كده هاي مقدمتي إيو قضب بدا هربه قضب كاللباد وحاوي المحافظة على الصلوات الخمس إن شنت الصلوات إلى لسه دائمته شروط هذا هي أركان هذا هي واجبات كذا هي خشوع هذا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون qofka haddaad diintiisa inaad ogaato aad doonayso qofka diintiisa inaad ogaato haddaad doonayso salaadiisa fiiri salaadiisa fiiri suu salaada ku yahay rag baa idinla dhashay rag baad u dhaxdeen rag baad dhasheen rag baa maaragtay wax walba idinka dhaxeeyaan siduu salaada jamaacada ku yahay fiiri salaada siduu ku yahay fiiri hadduu yahay qof salaadiisa ka murgaya oo ku faraxsan qofka waa ahlu diin oo Allahumma ij'alna min ahli salat sida daraadeed buu nabi maxamed alayhi salatu wa salaam xitaa markuu wax yar walwal yar markuu dareemo kaana yafza'u ila salat xagga salaadu u ordi jiray nabi maxamed wuxuu oran jiray sallallahu alayhi wa sallam arihna biha ya bilal oo noogu raaxee qofkan kalena waxa weeye laga yaabo inay calaamadaha munaafiqiinta inay u soo dhuunteen waxa weeye wa idha qaamu ila salati qaamu kusala yuraa'una an-nasa wala yadhkuruna allaha illa qalila markay salaada u istaagayaan waxaad moodaa inay 10 foosta gadaal uga xidhanta culays buu dareemayaa wa idha qaamu ila salati qaamu kusala yuraa'una an-nas dadka istusayaan ولا يذكرون الله إلا قليلا إلهينا محسيان إن يرم أجيه منافقين على مدى منافقين تمرك وحوي صلاة دون يكون عسليسو صلاة دمرك هدي أي خلاف ضدها أو قلبي هذا كو قبوبي لأنه سموه قدين صلاة وقرة عين محمد صلى الله عليه وسلم والقبوسي النبي والنبي مدو كرة حيسن شري أرحنا بها يا بلال مدو أورن شري والنبي محمد عليه الصلاة والسلام أرحنا بها يا بلال نوغر راحة مؤذنكم مركو دواقة يوحوا ليه ما قرنيسان حي على الصلاة حي على الفلاح وروك علي الليبان صلاة أوك علي الليبان مدوني صلاة تكو
inaad faraxda ma doonaysaa salaada tuko risqi waasaca ma dooni salaada tuko wa'mur ahlaka bis-salaati wastabir 'alayha laa nas'aluka rizqan nahnu narzuquk maanta haddii la is yidhaahda ka waran maraykanku hadduu yidhaahdo maraykanka waxaa loo qaadayaa ciddii salaada si fiican u tukata masaajidka ma marnaan lahaa meelaha xeryaha qaxootiga intay idiin jiraan runta ii sheega xerada qaxootiga ee maraykanka loo tago intay idiin jiraan basas baa loo qaataa soo ma aha waxaa la ii sheegay marka xeryaha qaxootiga wax la soo dejiyo masaajidku inuu dhowr saf noqdo waa maraykan oo hadduu rabo kaaga baxaya ballanta ilaahay wuxuu ku leeyahay subxaanah horta maraykanka maxaad ka doonaysaa risqi iyo adduunyaad rabtaa soo maa ma bukhaarigii muslimkaad ku soo xifdin ma qur-aankaad ku soo xifdin maraykanka waa laga yaabaa kuwa qur-aan ku xifdi way jiraan laakiin kolba u malayn maayo qof hadda niyadiisu ay tahay inama alacmaalu binniyaat soo maa qof niyadiisa ay ku jirto maraykanka aad bukhaariga iyo muslimka kusoo xifdiside inuu jiro anigayla ma aha ilaahay wuxuu ku leeyahay ehelkaada salaada amar uguna dulqaado oo ku sabir laa nas'aluka risqan risqi ku weydiin mayna naxnu narzuquk waalcaaqibatu litaqwa salaada oo la ilaaliyana marka alla ka cabsi bay u baahan tahay qodobkaasna waa qodobka labaad ka saddexaad waxaa weeye alihtimaamu bilaakhira aakhare inay kula weynaato aakharo inay kula weynaato adduunyadan inay tahay maalmo tirsan inay tahay meel aad transit ku tahay meel aadan ku waaraynin inay tahay inaad ogaato dhallinyaradan oga sheekeynaya maalin dhoweyto world cupkiibaa wuxuu ka socday ruushka kelmad unbaa ilaahay ugu soo riday waxaan idhi nimankaas la soo tababaray ee murqaha waaweyn ee sidii dibidii inta raashin laga soo buuxiyey murqo kuukuusan loo soo yeelay la yidhi kubaddaa koobka soo qaada bil baad meesha joogaysaan hadday yidhaahdaan ka warrama hoteellaa la dejiyey dhakhaatiir baa la raaciyey lacag baa la siiyey wax kastaa la siiyey soo ma ogidiin hadday dhahaan ka warrama ahaa arwaa noo ahaatee soo raaxa maana doonayn haa annaga hoteelkan aan ku raaxaysanayna kubadna ciyaari mayno garoonkana tegi mayno ciddiina soo dirsatayna bul allaha siiya warkooda kuma jirno meeshan aan ku raaxaysanaynaa bishan yaan ka qabsanaynaa ka fara qabsanaynaa hadday dhahaan ma u malaynaysaan dowladihii soo dirsaday inay raalli ka noqonayaan ma u malaynaysaan iyagu in ay tababar qaadanayaan oy koobka qaadayaan maya u malayn maayo laakiin hoteelkiioo qurux badan oo siduu u goglan yahay aada yaabaysay ka kacayaan aroortiibay toosayaan way ordayaan way hiraahirayaan wallaahi dhafoorkooda iyo hiraahirka iyo neeftuurka nimankaa ka baxaya haddaad aragto jihaad inay ku jiraan moogi wax kale inaadan moodayn waxaa maxay rabaan waxay og yihiin hoteelkani danta loo soo diray ma aha koobkaasay u socdaan inay qaadaan soo sidaa ma aha hadalka meesha aan doonaya inaad iskala doonataan dhallinyaro badanna ilaahay ku anfacay waxaa weeye war adduunyadan waa transit war dhaldhalaalkeeda yuusan ku dagin quruxdeeda ha ku dagmin waad ka socon waa transit meesha loo socdo waa aakharo alihtimaamu bilaakhira waman camila liaakhiratihi qofkii aakhiradiisa u shaqaystaa kafaahu allahu amra dunyaa ilaahay baa ka kaafiya kana kafaalo qaada noloshiisa adduunyada qodobka afaraad ama calaamadda meeqa calaamadood baan soo sheegnay horta waan daalay aan idin weydiiyaba ilaa alcilmu bayna talaamiid baa la yidhi bal hadda idinkaan idinku soo wareejinaya meeqa calaamadood oo lagu garto qalbigaadu inuu fiyow yahay baan soo sheegay saddex soo maaha midka koobaad qoladan aad sheegaysa korna u sheega insha allah waa dikrullaahi soo maaha calaamadda saddexaadna qolada dhexe yaa calaamadda labaad cafwan waa maxay calaamadda saddexaad
إن صلاة الله حفظي سماها قولوا بدح ذا على مدى صدحنا محن ليه يا إن آخرك وينات جزاكم الله خيرا عرب كنا بر يبوق الله كيلا لي آمين ده بر يبوق الله عرب كنا كيلا لي آمين ده على مدى أفراد مركا وحاوي الاغتنام من الوقت وقت قاعدين أتكفى إذا وقت جوا قالي وقت جوا الدنيا دن أن شوقنا هدو هردو كوكو دافو هدو ما لا يعني كوكو دافو هدو مبفرت الدحدة كقنيني نبي محمد عليه الصلاة والسلام أرنك واعدي اغتنموا 5 قبل 5 شن هرتات شن كغني ميسة نبي محمد وحوير عليه الصلاة والسلام وروقت جينا شن بايدين صومر الدونتو وادنا كتجي دونتان كفى إيديس وحاكم إذا إن هذا وقت هذا كفى إيديستو إن النلش هذا كفى إيديستو دل يرى ماذا هذا إن كفى إيديسو كفى إيديستو الله جل جلاله وحوك دارتي وقتك إنبدا والفجر والليل والشمس والضحى والعصر إنبدا بلا كدارتي وحين كنت سنيس أهمية أولية هاي marka waqtiga inaad ka faa'iideysato waqtigana ka faa'iideysigiisa maalina daasha ama bil daasha ama xoogay markii muhaadaro yar ay culimada mid kamid ay ku jeediyeen inaad xoogay qalbigaada uu qoyo oo maalmo ku dhaqaaqda maaha waa inaad jadwal leedahay jadwal yawmi waa inaad leedahay maalin kasta waa inaad balan leedahay jadwal shahri waa inaad leedahay jadwal sanawi waa inaad leedahay jadwal 5 sano waa inaad leedahay jadwal 10 sano waa inaad leedahay jadwal cimrigaado dhan waa inaad leedahay cimrigaado dhan waa inaad tiraahdo maalinka lagu qaado adigoo duuduuban oo lagu soo dhaqay oo saa u duuduuban oo maracad ay ka soo raacday adduunyada qabriga marka inta saa lagu agdhigo saa lagu yiraahdo sallu calayha kuntu kada maalinka maxaad ku farxinay inaad haysato ma waxaad ku farxi lahayd inaad maalin kasta 4 saacadood Facebook ku jirtay ma waxaad ku farxi lahayd inaad aroosyada iyo xafladaha iyo diracyada qarxa inaad meelaha la taagan tahay ma waxaad ku farxi lahayd iska adduunyadii iyo shaqadii iyo beec mushtarkii inaad waqtigaada dhan ku bixiso mase waxaad ku farxi lahayd inaad maalin walba toddobaadkiiba mar inaad quraanka dhameyn jirtay adkaaru sabax wal masaa waalidka inaad baari u ahayd hadday dhinteen inaad u ducayso dacwada diinta inaad ka shaqayso wahaakada marka waxa weeye waa fursadii cumrigaada weeye